بسم الله warsaama digital media waa idin salaamay dhammaantiin maanta waxaynu ka hadlaynaa dhibaatooyinka la soo gudboonaada qoysaska ama qoyska Soomaalida ee qurbaha jooga. Wadagtihiin oo dalkeena waxa ka dhacay dagaal sokeeye oo aad iyo aad u ba'an, kumayaal haddaysan malaayiin ahayn ayaa qaxay oo aaday wadamo shisheeye oo aynaan isku dhaqan ahayn. Badanaaba wadamada qaxootiga soo dhoweeya waxay u badan yihiin ama yihiinba dowladaha diin teena ka duwan leh, masiixi ah, haddana intooda badan cilmaani ah ama secular oo aan diinta ku dhaqmin. waad ogtihiinoo kaniisadda iyo dowladda waa la kala saaray dagaal dheer ka bacdi, qarniyaal hore lasoo dhaafay. hadda qolada kaniisaddu ama qolyaha diintu ma faragelin karaan siyaasadaha dalka. qof hadduu kaniisad galana ciidamada qalabka sida ama ciidamada nabad sugiddu uguma geli karaan ilaa uu ka soo baxo kaniisaddaas. waxaa loo bixiyey arrintaas separation of the church and the state, in la kala sooco diinta ama kaniisadda iyo dowladnimada. maxaa dhacay marka? kumayaal qoysas Soomaaliyeed ayaa qaxay, waxay tageen North America ama waqooyi America, waxay tageen Europe. qoysaskaas badanaaba aabba iyo hooyo dad iskuul soo maray maaha, dad afafka ajnabiga yaqaana maaha. waa la soo dhoweeyey, waa la dejiyey, mahad ilaahay. dee afkii ma yaqaanin hooyo iyo aabe. caruurtii waxay noqotay iskuul. caruur guriga kuma hayn karidaan iskuul aadayn, waa sharci weeye. iskuulkii in la geeyo, suuqay galeen, waa barteen afkii. hooyo iyo aabba maadaama afkii ingiriiskii ama faransiiskii aysan ku hadlin, dee waxay noqotay caruurtii inay noqdaan turjumaanka waalidka. ilaa caruurta markiiba afkii waa la qabsaday, iskuulka iyo suuqaba. awooddii waalidnimo yay u wareegtay marka. awooddii waalidnimo waxay u wareegtay caruurtii, wiilashii iyo gabdhihii yaryaraa. iyagaa xafiisyada dowladda u raacaya, iyagaa u turjumaya, iyagaa haddii loo yimaado oo yacni fatashaad iyo wasaaradda maaragtay social serviceska hadday u timaado guriga, iyo caruurtii baa turjumaanaysa. caruurtii ayaa waxay noqotay inay xiriir la yeeshaan dowladda iyo mujtamaca inta kale. hooyo iyo aabbana ay yihiin sidii dad fadhiida oo waxba qabsan karayn. hadda waalidnimadii meesha waa ka baxaysaa. caruurtii yaa edbinaya, waa caruur yaryar teen age iyo wixii lamida ama ka yaryar. hooyo iyo aabbana awooddaasba ma laha, oo haddee afba ma yaqaaniin. caruurtii ayaa marka xukunkii ku wareegay waalidnimo. horta dhibkaasaa dhacay. waxaa dhacay marka caruurtii maadaama ay saa noqdeen oo xorriyad xaddhaafa oo aan waalidku waxba ka qaban karin ay yeesheen, waxay noqdeen suuqa in iska galaan, wiilashii gaangi noqdaanin oo yacni mukhaadaraad iyo maandooriyaal ay suuqa ka iibiyaan. reerkiina waa iska saboolo, lacag ma haysto. halkaana dadka ka shaqeeya maandooriyaashii waxa weeye waa dad lacag badan haysta, oo maaragtay waxayba noqotay wiilkii inuuba maaragtay
nin lacag haysto oo aan waalidkiiba u baahnayn uu noqdo. horta halkaa dhibaato weyn baa ka dhacday. dhibaatada kaloo dhacday waxa weeye wiilashii sidaasay ku dhumeen, gaangis bay wada qaneen, xabiskay ka wada buuxsameen. gabdhihii baa soo haray. gabdhihii waxbay barteen, wada dhakhtar iyo injineer iyo wax la mid ay noqdeen, laakiin rag ma haystaan ay guursadaan. waa dhibka soo saaid. ilaa wiilasheennii waa doorsoomeen. carradana waxaa ka buuxa oo soomaalidu markay dan yartaa guryo la dejiyey waxaa laga soo buuxiyey kuwo kaloo dan yar oo Jamaica iyo Haiti iyo wadamada la yiraahdo oo dhaqan xun oo xataa aan meherba ku dhalan oo maaragtay yani maandooriyaal iyo waxaa ka shaqaysta, iskuulkana aman teginba, iyaguna saas oo kale xabsida uga buux. maxay noqotay marka gabdhaheenii iyagoo wax bartay oo professionals inay rag waayeen ay guursadaan. arrintaas hindida waa soo marnay, laakiin xal bay u heleen. halkii ay u heleen waxa weeye reerku markuu dego Yurub ama North America oo carruurtoodii wax bartaan oo wada dhakhtar iyo injineero iyo adeela ku leeyahay howlaha kala gedisan oo culumta ay bartaan, wiilkii ama gabadhii dalkii baa looga raadinayaa qofkii ay guursan lahayd ama uu guursan lahaa. waa la soo sponsor garanaya, wakiil baa laga noqonaya, ama wiilka ama gabadha xagga la geenaya. halkaasaa guur ka soo dhacaya, markaasaa sponsor gabadhii ama wiilkii la soo gelinaya. arrintaas waa xaliyeen hindidu. inagu weli heerkaas ma aynan gaarin. gabdhaheenniina waa dayacan yihiin. marka walwalka ugu weyn oo haysta dadka qurba joogga ee Soomaalida horta taasaa ugu weyn. waxa ku socda Soomaalida dhaqan guur, gabdhihii de markay rag waayaan inay dadka kale iska raacaan bir, ama gaal ha raacdo, ama Jamaican ha raacdo, ama Haiti ha raacdo, ama xataa kuwa China kuwa raacay baa jira, iyo Vietnamese iyo wax la mid. xataa Carab Muslimna maaha. horta dhibaatadaasaa jidha. waxaa loo baahan yahay markaa gudo iyo dibadba in la tashado oo sidii laga yeeli lahaa dhibaatadaa socota oo waqooyi America iyo Yurub ka socota in xal loo helo. wiilasha halka kan aan shaqada ku haysan oo waxbarasho ku haysan in la sponsor gareeyo noqonaysaa si ay gabdhaha u guursadaan. laakiin waxaa loo baahan yahay qoyska Soomaaliyeed ee ku nool North America ama Yurub inay tilaabada hore qaadaan. dadka Soomaalida oo dalka joogana ay ku caawiyaan sidii gabdhaha Soomaaliyeed loogu heli lahaa wiilal fiican, si jinsigeenu u sii socdo, isirkeenu u sii socdo, maaragtay ceeb ku dhacda dhaqankii Soomaaliyeed iyo diintii Soomaaliyeedna sidaa looga maarmo. marka intaasaan oran lahaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin. wayn salaam.